runtu waa buddiga sixidda qalad jira waxaana muhiim ah in qofba kan kale uu ku biiriyo aragti wanaagsan oo dhisi karta maskaxdiisa kana reebi karta ficil xun balse isagu u arko mid wanaagsan. tani waa sheeko ku saabsan barankiga qoysaska ee YouTube-ka. ma ahan filim balse marwadan waxay isku diyaarinaysaa inay kaamirad qarsoon ka duubto saygeeda waliba iyada oo u matalaysa sida inay uur u leedahay. ujeedkeeda ugu weyn waa inay la wadaagto dad mareegtan YouTube ku sugaya dareenka uu saygeeda muujin doono marka dhamaadka uu ka war helo in ficilka xaaskiisani uu ahaa mid been abuur ah. haddaba maxay tahay faa'iidada arrintan? ma helidda daawadayaal tiro badan baa mise waa dhalin rog cusub oo ku dhacay nolosha qoysaska Soomaalida? haddii jawaabtaadu ay tahay daawadayaal badan weeye ahmiyadu, miyaan lagu heli karin daawadayaasha in looga sheekeeyo ahmiyada guurka uu leeyahay, faa'iidada guurka uu leeyahay iyo nolosha isbedelka ku iman kara marka qofku uu guursado? bedelka ku hagidda jidka noocan oo kala qoysas curdun ah iyo kuwa hadda kadib doonaya inay yagleelaan nolol cusub. social media haddii aad si wanaagsan u isticmaashidna waxa wanaag ku duwa, haddaa si xun u isticmaashidna xumaan ku duwa. haddii marka muhiimadda ay tahay in ay in badan kusoo fiirsadaan oo waxa dadka sheeg ama caytan ama wax ka aflagada samey markaas haddii ay ugu fiirsadaan taasna waxa waaye waa dhinac kale. laakiin hadda waxay u badatay in markii YouTube oo kale la galo ama Facebook la galo dadka inay aad u xiiseynayaan xumaanta oo haddii uu sheekh oo ka hadlo waxaa moodaa in isla markiiba qofkii hore uu ka bedelay kanaalka kala raadinaa caydadna. marka taasna in lagu raadiyo xisaab lagu raadiyo caydad bini aadamka waa laga fiican. weli maana furin. What? Okay, marka xaas laga waran karaa. What's going on right now? markan ninkan isna wuxuu u soo banbaxay in marwadiisa uu ka duubo kaamirada qarsoon. waxa uu u sheegayaa inuu la qabo xaas kale. qaracan iyo murugo ayaana bilaabanaysa. haye xiise ayuu leeyahay Soomaa midkan maya ma ahayn mid u baahan in loo baahiyo bulshada. arrintu waxay qusaysaa lamaane waa sir guri waxay ahayd in la qariyo ma ahayn in noocan loo baahiyo. daawadayaashu waxay mudan yihiin in loo baahiyo waxay wax ka faa'iidi karaan. ninkanna waxay mas'uuliyad ka saaran tahay ilaalinta nolosha guriga ee qoyskiisa. mas'uuliyad kama saarno baahinta qoyskiisa iyo inuu soo bandhigo malaayiin dad oo aan aqoon u lahayn. شبيه هذيك هذي براكو بيرفكت نقدر وايدين سو gudbanaaya saas la socdo furiin ayay markan marwadan dalbanaysaa. hadda waa furiin. ujeedku waxa uu yahay in muuqaalkan falcelinta odaygan loo baahiyo daawadayaasha balse garasho dambe oo ninka dhalinyarada ahi uu alla siiyey waxa uu cuntami weynaysa in arinta qoyska loo bandhigo dadweynaha. waxa uuna leeyahay ninkan oo ah YouTuber waxa uu markan argagax gelinaya xaaskiisa isagoo matalaya sida nin dagaal soo galay oo kale dhiig uu ka qulqulayo. waxa soo dhan u sameynaya waxay tahay inuu bulshada la wadaago dareenka xaaskiisa ay qaadi karto marka ay ku aragto waxyeelo isaga oo qaba. haddaba ma mudan tahay naxdin noocan la eg in loo geysto qof dumar oo ka walwal badan kaala baqaysa murugo ku soo gaarta ama dhib ku soo gaara adigu? jawaabtu waa maya. hab kale ayaa la heli karaa oo daawadayaasha loo madadaaliyo. dagaal hadda gal wallahi. Are you fucking serious? There's blood on you. hadda socnaa mas Mindy has Stop! Call 911 and stop recording. Stop recording! Are you freaking serious? haddaba baraanka sidee baan aqbali karnaa ama baraanka noocee aan u baahanaa? bal arag midkan. kan oo kale waa iska fani. waa mid aan ku xirnayn nolol qoys. waa dhalinyaro iyo kaftan. kan oo kale aan u baahanaa. haddaba walaal haddii aad doonayso inaad daawadayaashaad u soo tabiso barnaamijyo xiise leh ma aha inaad ku lifaaqdo nolosha qoyskaaga ama tan gaar ahaaneed ee guriga. fadlan
usoo tabi barnaamijyo xiise leh oo iyagana anfici kara adna ku anfici kara waxyeelana ku gaarsiin karin